السلام عليكم. waxaa muddo 2 casho ah baraha bulshada qabsaday hadal jeedin ay lahayd gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee Soomaaliya Saadiya kaas oo afkalaqaad ku noqday dhammaan bulshada Soomaalida ah waxa ay Saadiya keentay xeer ku sheeg lagu magacaabay xeerka jinsiga kaas oo ay ku jiraan gafaf waaweyn qaar diineed qaar anshax iyo qaar afxidba waxa aynan hilmaami karin in xeer ku sheegan hore loo hor keenay baarlamaankii hore ee Soomaaliya ay si edeb anshax diin iyo dhaqan dhowrba leh uga yaxyaxeen marabin inaan aqriyo laakiin waa xishoonaya laakiin waa aqrinaya ayna uga soo horjeesteen wuxuu sharciga islaamka ka qabin iyo dastuurkan uu qabin lama keeni karo meesha mana ogolaanayo haddaan idin sheegaynaa waxyaabaha ugu la yaabka badan ee ku jira xeer ku sheegan ayaa ah in aanu ka hadlaynin sinada oo ka mid ah dunuubta iyo gafafka ugu waaweyn ee uu adoon galo wuxuu fasaxa u fiirsada wuxuu fasaxaya zinada wuu fasaxa waxa kale oo ka mid ah gafafka waaweyn ee ku jira xeer ku sheegan in uu kufsiga ku xidhayo hal shardi oo kali ah kaas oo ah shuruudda ku xiran waxa waa inuu ogolaado shuruudda kaliya ku xiran inuu ogolaado way hadduu ogolaado ayadoo halkaasi ay isku haystaan haddii uu ogolaado itmiinis ma aha dembi maaha waxa kale oo ka mid ah adeegsiga ereyga qof kasta taas oo ah in nin uu nin kale wax u doonan karo halka ay gabadhuna gabadh kale damaacin karto alla ayaynu waxaas ka magan galnaye oo ah aafada khaniisnimada ee ay reer galbeed rabaan in ay sanka ka geliyaan aadamo kasta oo nadiif ah kuna nool sidii caadiga ahayd ee aadamuhu u noolaayeen allana u abuuray heer ay aadamaha gaadhsiiyaan kuwa u dhaqmo sida mayeedhanka wuxuu dhahayaa qof kasta gabdhaha xitaa faldambiyad kufsiay geli karaan yani qof kasta wuxuu gelayaa faldambiyad kufsi ah haddii uu ma rabin inaan aqriyo laakiin waa xishoonaya laakiin waa aqrinaya laba waxa ka mid ah isdiidooyinka ay ku dhacday in ay tiri 114 suuradood ee Qur'aanka waxa ku yaala ayaan rumaysnahay oo raacaya kuna qancaya 17 Qur'aanka wuxuu qabo ayaan qabaanay wax kalena ma rabo taasi ma xuma oo waaba wanaage haddana waxa ay tiri oo wixii horeba bi'iyay hortiina waxa aan ballan uga qaadaya ama in aan Muqdisho uga tago ama in la ansixiyo sharcigan horta waa bilaabay waana dhamaystiraya ilaahay waxaan hor ballantiina ku qaadaya ama in aan Muqdisho uga tago ama in sharciga la ansixiyo horta haye meeday oraahdaadii ahayd waxa aan raacaya 114 suuradood waxa ay qabaan soo maanay ahayn ugu yaraan in aad dhahdo xeerkaas eega oo wixii 114 suuradood ee Qur'aanka ah ka waafaqa inoo ansixiya bal aynu eegno iyadana shareecada islaamka iyo waxa ay kufsiga ka qabto waa kan Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo arintan sheegaya qodobka labaad hadduu kufsi dhaco shareecadeenu waxay ku xallisay u fiirsada oo gabadha la kufsado ayadu dambi ma laha ayadu dambi ma leh bal xuquuq bay yeelanayaan ninka kufsaday saddex mid baa la marinaa hadduu hub u qaatay oo gabadha xoog ku kufsaday oo hub u isticmaalay xukunkiisu sida culimada qaarkood qabaan waa in la dilo haddii uusan hub u qaadanin oo ku kufsaninna hadduu nin xaas hore guursada yahayna waa in dhagax lagu dilo hadduu haweenay hore uusan soo marin oo guur hore soo marinna inta muslimiinta la soo hor istaajiyo 100 jeedal in lagu dhufto waay xabsina waliba loogu daro yaa qabta sida diinteena qabta soo xuquuq adag ma oo dumarkii iyo gabadhii iyo sharaftoodii ilaalin lahayd ma gari allay taqaanaaye iyama ayaa adag marka la eego sida uu sharcigu sheegayo una ciqaabayo ninka kufsi geysta iyo dhowrka sano ee xeer ku sheega iyo sida ay haweenka in ay u naxayso una damqanaso ku matalayso Saadiya waxa ay ku xukmeen allan idinku dhaarshay yay tahay
cidda dhabta ah ee u naxday haweenka iyo cid kasta ee xaqeeda dhabta ahna siisay isagoo dhammaystiran. halkee ayaa ay wax ka khariban yihiin markaa? si aynu u fahanno waxani waxa uu yahay ila daawo Sheekh Maxamed Cabdi Umal oo leh maxay rabaan barnaamijkan lagu leeyahay kufsi baa laga hadlayaa. kufsi maaha, waa sharci la yidhaahdo sharciga jinsiga oo dhammaystiran waaye. akhriya haddaad soomaaliga taqaanaa, sharcigaasi waa sharci dhammaystiran. haddaba xeerka jinsiga ee uu sheekhu sheegaya waa maxay? waa kan Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo faahfaahinaya marka arrimahan laga hadlayo iyo filimaanta la isku khaldo. idinku waxay taqaaneen malaayeen iclaanaad loo sameeyo maxaa la yiraahdaa cunnada iyo alaabtan aynu iibsanay iyo waxaasaa loo sameeyaa maxay taswiiqa marketingka iclaanka waxa ka weyn iclaanka maanta dunida afkaarta loo sameeyo. afkaar baa la faafinaya, afkaarta qurxin la qurxiyey. ومثلا أفكار يضل فافينيو مصطلحات dadku ay jecel yihiin baa lagu isticmaalaa. xuquuqda rag, xuquuqda dumarka, xuquuqda carruur, qof binaadam xuquuqdiisa diidan ba jira. hadii lagu dhaho xuquuqda dumarka dee waxaad tilaada waa wax fiican sharciga maaha, laakiin xuquuqda la sheegaya waxa weeyaan suuqeeda waa inay geli kartaa, sagaska cidda ay doonto waa inay la samayn kartaa. sharci ma kuma xidhna qaanuunku inuu guur kuma xidhna sagasku. guur iyo guur la'aan waa la samayn karaa, faamiligu wada deganaan karaa. faamili maxaa loo yaqaanaa? nin iyo gabadh isqaba oo sharci la isugu meheriyey, wuxuu doonaba sharcigu ahaadee. waxaa kaloo loo yaqaanaa baa nin iyo gabadh wada degan, meherba yuu dhicine. waxaa loo yaqaanaa laba nin oo wada degan oo la isu meheriyey, haddaba laba nin. waxaa loo yaqaanaa laba nin oo aan la isu meherine wada degan bay ku leeyihin. waxaa loo yaqaanaa laba dumar oo la isu meheriyey, laba dumar oo aan la isu meherin. ilaa 12 qaybood wax ku dhadhow buu tilmaamayaa wasiiqada United Nations iyo qoyska. maxaa qoysa? adu marka aad maqasho usrada hal la horumariyo waxaad soranaysaa dee reerihii baa wax loo qabanayaa oo familieskii iyo qoysaskii baa la wadaa, laakiin qoyska uu sitaa waa qoys nooca kana. markaad maqasho xuquuqda dumarka waxaad leedahay xuquuq dumar baa laga hadlaya. laba mid oo caqliga bini'aadamka geli kara hoosta laga soo gelinaya. tolo isla wadamada reer galbeed ee ay sheegeen in ay adeegsadeen xeerka jinsiga ma ka badbaadeen in uu dhaco kufsi iyo tacaddi. xaaladda wararka ee Faransiiska ayaa waxa ay baahisay in ku dhawaad 126 dumar ah oo guriyada geeriyoodeen sanadkii 2019 marka loo eego tirada sanadkii 2018 waxa ay sare u kacday dhimashadu 7%. waxaynu xogtaas ka soo qaadanaynaa wargeyska wakaaladda Faransiiska ee wararka waa France 24. maalinta caalamiga ah ee la dagaalanka tacaddiga haweenka ayaa ka hor 2 cisho oo keli ah waxa ay isugu soo baxay mudaharaadyo abaabulan 10,000 oo dumar ah kuwaas oo ka cabanaya dilka iyo cadaadiska qoyska ee ka dhan ah haweenka, kaas oo keenay in la dilo 100 iyo wax ka badan oo haween ah. mar kale dawladaha midowga Yurub, haweenku waa aqlabiyadda xoogga badan ee wajahda tacaddiyada jinsiga ah ee qoyska. Faransiiska iyo Ingiriisku waxa ay hoggaanka u hayaan tirada ugu badan ee dhacdooyinka noocan oo kale ah. 2017 Faransiiska gudihiisa 601 haween ah ayaa u dhintay faldambiyeedyada takoorka iyo cadaadiska haweenka. haddii aynu xaggaas u sii wadno, afti bulsheed ay qaaday xarunta cilmi baadhiseed ee Pew Research Center 2017 dadka ku nool dalka Faransiisku 73% waxa ay taageersan yihiin guurka ragga isfuula ama waxa loo yaqaano homosexual. gunti iyo gabagabadii waxa aynu baraarujinaynaa 3 qodob. 1. in qof kasta waxa uu dhowrayaa ay noqoto diintiisa iyo dhaqanka dadkiisa. 2. in bulshada Soomaaliyeed marna aanay aqbalin wax kasta oo inna waxyeelaynaya diintooda iyo dhaqankooda wanaagsan. 3. in muuqaalkan uu fasax u haysto qof kasta oo raba in uu bulshada ku baraarujiyo garabsiinta saxa iyo hor istaagidda surmaseegtada. Assalaamu calaykum.